السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يال كسو دوادا channel كنا دال حميدية وولالك محمد مرسل أرى وكلا سعطان channel كدال حميدية وينسو قد بيه وحيابها كسو أفصان تلوينك وحبر الشضا يدي رجل انت ما انت يالك عن كسو قد بيه سيال غضب وكعاونا يا إناد قارتو إناد نغطو أخرستو ونكسن هادونا كمر اللي يحاخرس كيسا قضبك كوباد xoog saar waa inaad xooga saartid shayga aad danaynayso iskana ilaaliso dheehanaanta iyo maqnaanshaha maskaxda waayo caqligaaga fiyow waa inaad ku mashquulin waxyaabo kale sidoo kale xilliga ugu habboon ee wax akhrisku wanaagsan yahay waxaa ka mid ah xilliga hore ee subaxdii waana waqtiga ay maskaxdaadu saafiga tahay qodobka labaad muhiimadda maadada u gaarka ah tusaale ahaan haddii aad baranayso maadada suuqgeynta ama ganacsiga ku fikir sida aad maadada hadhow ugu fulin lahayd shaqadaada oo aad ugu dabaqi lahayd noloshaada haddii aad baranayso laakiin maadada history ama taariikhga waa inaad daawataa ama soo degsataa film documentary oo ku metelaya maadada aad soo dhigatay ama casharkii maanta lagu dhigay waayo xilligan joogno waxa sahlan inaad wax walba u baahantahay ka heleyso internetka qodobka saddexaad ha ku muuqato hadafkaaga waxbarasho markaad hadafkaaga gaarka ah daba socoto si dhawaana u raacdo waxaa xaqiiqa ah inaad maalin uun gaarayso hadafkaaga qodobka afraad akhrinta ka hor diyaargarow sameyso jadwal akhris oo qorshe maalinle ah ku saleysan qayb kasta farac kasta iyo maado kasta maxaa yeelay waqtigeenu badanaa waxa uu ku baxaa jadwal la'aan wax badan ayaa naga lumay waa inaanu iska ilaalino inagoo aan u diyaargaroobin inaynu wax akhrino waayo wax aan xakameeya ma aynu hayno kaasoo ah waqtigeenu aynu maalin kari weynay qodobka shanaad maadooyinka adag ka bilow waa inaad ka bilowdo maadooyinka adag si aad u dareento inaad tilaabooyinkii ugu adkaa ee aad ka gudubtay hadhowna ay ku hareen maadooyinkii ugu fududaa kadibna aad noqoto arday wax walba u fududaadeen qodobka lixaad meel go'an wax ku akhri meel u go'an waa inaad wax ku akhriso meel u go'an wax akhriska waa inaad samaysato ka fogow goobaha cuntada telefishinka xitaa moobilka iska fogey waxaana si wanaagsan inaad ka dheeraatid inaad wax ku akhriso joodariga ama sariirta waayo waxaa imaan kara inaad ku hurdooto kuna caajisto qodobka toddobaad ka fogow waxyaabaha ku mashquulin kara sanooyinkii dambe moobilada smartphone-ka ah waxay noqdeen kuwa ugu caqabada badan ama haddii aad dhinaca xun ka eegtid mashquuliya badanaba ardada iska ilaali inaad ku mashquulshid telefoonka iskaga lumiso waqtigaaga sidaa darteed waxaan ku talin lahaa inaad iska fogeyso xilli kasta gaar ahaan xilliga wax akhriska iyo imtixaanka qodobka sideedaad qaado cuntooyinka caafimaad iyo jimicsi joogto ah ka fogow cuntooyinka baruurta xilliga imtixaanka inta badan caajis ayaa laga qaadaa qofka nasasho ayaa u baahda sportska samee ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii kuma lihi kubadda ciyaar xilli kasta waqtigaagana ku lumi laakiin taa maaha waa inaad xilli 30 daqiiqo ama hal saac ugu yaraan waa inaad waqti siiso xoogaa kusoo jimicsato laakiinse waa inaad iskaga lumin waqtigaaga waxaan kala dardaarmayaa dhammaan ardada iyo dhalinyarta kale ugu xiran inay ka dheeraadaan waqtigooda ay ku luminayaan ciyaaraha malayacniga ee ku lumiyaan xilliga ay ugu talagaleen kubadda inay ku bixiyaan wax akhris xilli yar ay jimicsiga nasiyaan qodobka ugu dambeeya ee sagaalaad isticmaalka erayada dhiirigelinta halkan waxaa kaalin weyn ka qaadanaya waalidka waayo waa inuu waalidku ubadkiisa ku dhiirigeliyaa dadaalka ay bixiyaan kuna taageeraan erayada niyad jabkana ka ilaaliyaan waalidku ilmahooda
sidoo kale macallinku waa inuu ka ilaaliyo ardayga waxa niyad jebinaya sida damiin baa tahay waxba ma taqaanid ereyadaas oo kale, waayo ardaygu wuxuu ka ogaanayaa maskaxda ereyadii macallinku siinayay ama waalidkii siinayay, kadibna wuxuu noqonayaa mid damiina oo madax adag. ku dadaal ardaygaaga inaad dhiirigeliso mar walba. marka intaasaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkayga maantay. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.